kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada qodobada wararka maanka miidiya maantana waxa ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay ee faahfaahin laga helayo qarax ka dhacay Muqdisho dagaal beeleedka qarax ee cadaadada duleedkeeda Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo iska kaashanaya fatahaadaha webiga Shabeelle shirkadda DP World oo ka guuleysatay dawladda Djibouti madaxweyne Farmaajo oo qaabilay suldaanka cusub ee dalka Oman senator ka digay in galmudug mucaarad madax looga dhigo iyo taliyihii ciidamada mucaaradka Liibiya oo ka baxay heshiis xabad joojin qodobada iyo kuwa kale oo daahsoon faahfaahintooda u diyaar garooba daawadayaal mar kale kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal haddii aad ku cusub tahay daawade fadlan ha ilaawin inaad channelka subscribe tiraado si la mid aad gambareelka ku dhufato si aad u heshin macluumaadka u dambeeyay halkan aynu ku soo daabacno markana qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilownay duhurnimadii maanta qarax jugtiisa inta badan laga maqlay duleedka Muqdisho ayaa ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha kaasi oo geystay khasaare kala duwan qaraxan oo ahaa miinada nuuca dhulka lagu aaso ayaa dadka deegaanka ceelasha biyaha waxay sheegeen in lala eegtay askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya oo ilaalo ka ahaa saraakiil Turkiya oo ku howlanaa dhismaha wadada xiriirisa Afgooy iyo Muqdisho wararka ayaa sheegaya in qaraxa ay ku geeriyoodeen laba askari oo ka tirsan ciidamada dawladda mid kalena uu dhaawac ka soo gaaray oo loo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho qaraxa markii uu dhacay waxaa la sheegay in ciidamada dawladda ay fureen rasaas fara badan taasi oo la sheegay inay geysatay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac oo dad shicib ah soo gaaray wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooy ayaa waxa ku socda dhismo waxaana inta badan qaraxyo looga eegtaa ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa Amisom oo iyagu ku socdaala duleedka magaalada Cadaado deegaan ah oo lagu magacaabo Miraxayleena waxaa ka dhacay dagaal beeleed salka ku haya daaqsi ama deegaamaysi waxaana dagaalkan oo subaxii hore ee saaka halkaasi ka qarxay uu ahaa mid saacadii la soo dhaafay halkaasi ka socday dagaalka sidaan sheegnaba waxa uu salka ku hayaa daaqsi ama deegaamaysi waxaana dhinacyada halkaasi ku dagaalamay oo ah beelo wada dagaalkaasi ka dhaxeeyay sanadihii la soo dhaafay xiisad aad u xoogan oo ka dhaxaysa taasi oo salka ku haysa dagaalka ama daaqsinka deegaanadaasi markana Djibouti ayaynu aadaynaa shirkadda DP World ayaa ka guuleysatay dawladda Djibouti kadib dacwad uga socotay maxkamad laga leeyahay dalka Ingiriiska shirkadda DP World ayaa shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Istaga Imaaraadka Carabta ayaa dawladda Djibouti uga guuleystay wareegga labaad ee sharci ah kaasi oo ku saabsan dacwadda dekadda Dooraale dawladda Djibouti ayaa shirkadda DP World ka qabsatay ama si qasab ah uga erisay dekadda Dooraale 22 bishii November sanadkii 2018 taasi oo keentay in shirkaddu ay dacwad ka gudbiso dawladda Djibouti maxkamadda xalinta khilaafaadka caalamiga ee ku taala London oo wadanka Britain ah ayaa dawladda Djibouti waxa ay ku amartay in DP World ay u soo celiso xuquuqda iyo faa'iidooyinka ay leedahay maxkamaddu waxay shaacisay in la raacayo heshiiskii 2006 DP World iyo sidoo kale shirkadda Dooraale ay wada galeen oo dawladda Djibouti ay bixiso magdhow muddo ku siman 2 bilood gudahood qabiir madax bannaan ayaa qiyaasay khasaaraha gaaray shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Carbeed ee Imaaraadka waxa uu sheegay in $1 bilyan oo dollar khasaare dhan uu gaaray waxaana shirkadaasi haatan aysan ku sugnayn dalka Djibouti oo laga buriyaba shirkadda DP World ee maamuleysay dekadda Dooraale ayaa gacanta ku haysay tan iyo sanadkii 2006 ha yeeshee khilaaf soo kala dhexgalay ayay Djibouti ka burisay halkaasi maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeedna waxa ay iska kaashanayaan saameynta ka dhalata fatahaadaha webiga Shabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magaalada Baydhabo maanta ka daafuray shir looga hadlayo arrimo dhowr oo ku saabsan maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed shirkan oo ay goobjoog ahaayeen madaxweynayaasha labada maamul ee Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle mas'uuliyiin ka socota midowga Yurub iyo sidoo kale wasaaradda qorsheynta maamulka Koonfur Galbeed oo shirkaasi soo agaasintay
waxaa diiradda lagu saarayay horumarinta maamulada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed, isla markaasna shirka waxaa kaalin weyn ka qaadanayay safiiro ka socda wadamada Midowga Yurub. madaxweyne Laftagareen ayaa madaxweynaha Hirshabelle iyo xubnaha ka socday Midowga Yurub uga mahad celiyay doorka weyn oo ay ku leeyihiin shirkan, isagoo sheegay in la xoojin doono xiriirka wada shaqayn ee dhinaca amniga iyo horumarada labada maamul. mid ka mid ah safiirada Midowga Yurub oo shirka ka qayb galay ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin dowlad goboleedyada inay ka caawiyaan wixii ku saabsan arrimaha amniga iyo horumarka. shirkan waxa uu socon doonaa muddo 1 maalin ah, waxaana la filayaa in gabagabada laga soo saaro warmurtiyeed ku saabsan waxyaabihii laga wada hadlay ee la xiriira dhinacyada horumarinta, iskaashiga iyo ka hortegidda fatahaadaha webiga Shabeelle. Somaliland ayaa deegaano dhaca bariga gobolka Sool waxay ka dhagax dhigtay dekad qalalan. maareeyaha dekadaha ee Somaliland ayaa maanta dhagax dhigay dekadaasi oo raashin iyo alaabaha kale ee iibka la dhigi doono. wararka ayaa intaa ku daraya in dekada qalalan ee Somaliland ay ugu tala gashay in badeecadaha dekada Berbera ka soo dega halkaasi la dhigi doono si looga iibiyo bulshada gobolka Sool iyo deegaanada kale ee Somaliland. horey xukuumadda Somaliland ayaa magaalada Wajaale oo dhacda xuduudda Soomaaliya iyo Itoobiya waxay kaga dhagax dhigtay dekad qalalan oo noocan oo kale ah. Senator Yuusuf Geelle Ugaas oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay Galmudug ayaa ka digay in maamulka Galmudug loo doorto siyaasi mucaarada hoggaan uu ka noqdo. senatarka oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa sheegay in Galmudug dib u dhac ay ku jirtay dhowrkii sano ee la soo dhaafay, isla markaasna xildhibaanada aqalka sare ay fursad u waayeen si ay shaqooyinka Galmudug gacanta waa xildhibaanada aqalka sare aysan fursad u hayn in siyaasiyiin mucaarada gacanta loo geliyo hoggaanka madaxtinimo ee Galmudug. waxa uu sheegay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay waqti badan geliyeen sidii loo heli lahaa Galmudug midaysan, isla markaasna la jaan qaada dowlad goboleedyada kale, balse aysan mudnayn Galmudug in waqtigan mucaarad gacanta loo geliyo. ugu dambeyntii waxa uu sheegay in haatan Galmudug ay joogto meel wanaagsan, waxaana xildhibaanada Galmudug ugu baaqay in siyaasi mucaarada aysan hoggaanka sare gacanta u gelin. hadalkan senator Yuusuf Geelle Ugaas ayaa ku soo aadaya xilli munaasabad ka dhacday Dhuusamareeb oo ka qayb galayay taasi oo musharax gudoomiye baarlamaan uu ku cilaaminayay xilka uu u taagan yahay. qodobada wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn taliyaha mucaaradka ee Liibiya ayaa ka baxay heshiis xabad joojina oo la doonayay in laga dhexdhaliyo dhinacyada ku dagaalamaya dalka Liibiya. taliyihii ciidamada mucaaradka ee dalka Liibiya General Khalifa Haftar ayaa ka tagay magaalada Moscow isagoo aan saxiixinin heshiis isku day ahaa oo la doonayay in lagu sameeyo xabad joojin wax ka tarta dagaalada ka aloosan dalkaasi, sida laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda ee Moscow. kadib saacado wada xaajood ah oo ay soo qabanqaabiyeen dowladaha Raashka iyo sidoo kale Turkiga, Haftar ayaa fiidnimadii Isniintii waxa uu codsaday in ilaa iyo subaxnimada Salaasada uu fiirin doono heshiiska ay horey u wada saxiixdeen isaga iyo madaxa dowladda ay aqoonsan tahay qaramada midoobay. ila wareedyo laga helayo Liibiya ayaa xaqiijiyay ka bixitaanka Haftar iyada oo qabiyo qoraalka heshiiska uu diiday ay ka maqan yihiin dalabyo badan oo ciidamada Liibiya ayuu yiri Haftar oo waramayay telefishinka Al Arabiya. ma jiro wax horumara oo ka soo baxay wada hadallada aan tooska ahayn ee u dhaxeeyay kooxaha ku dagaalama gudaha dalka Liibiya. gudahaan warkii oo aad ka daawanayseen Maanka Media inahaas ayuu ku dhan yahay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.